ويا ميس ويديسي سؤالها aadka u faraha badan oo aniga inta badan isweydiiyay aad isweydiisaa ciidamo shisheeye dalka Soomaaliya joogo Kenyaan iyo Ethiopian ugu horeeyo oo cadow ah Kenyaan iyo Ethiopian adiga ku jecel ma jiro dada u maleeyo in iskaga xanaaqsanahay dalalkaas waa iska aamusi kara aniga nama runta idin sheegaa laakiin waxaa rabaa inaan ku sheego dal deris kula ah oo mar isdagaasheen ama dhul isku haysataan ama xuduud isku haysataan oo ku jecel haba yaraatee ma jirto habeen iyo maalin dalkaas dantiisa waxay tahay sidoo adiga ku liidi lahaa ku burburin lahaa okay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa rabaa inay dhageystaan maqaalkan fiiri maqaalkan wuxuu ka hadlayaa kheyraadka Soomaaliya ku jiro waxaan rabaa barnaamijkan in la sii fogeeyo maxaa yeelay inta badan waa iska indhitirnaa waxba kala ma socon Soomaaliya kheyraadka ku jiro gypsumka ka mid ah uraniumka ka mid ah oil saliidda ka mid ah iyo sidoo kale sida ujeedaan maadooyin kale oo fara badan oo aanan halkan lagu soo koobi karin ayaa ku jira laakiin waxaan rabaa inaan falanqeeno inta hadda idin soo sheegay horta gypsumka waxaa laga yaabaa badankiinaba inaadan ereyga maqlina laga yaabaa maanta kaliya uu kugu cusub yahay gypsum maxaa lahaa niyo aleedahay sawirka ila fiiri sawirka ma jida dhagxaantaas waxaa laga yaabaa inaad meel ku aragtay Soomaaliya laga helaa maadada gypsumka ayaa loo yaqaanaa maadadan gypsumka ah Mareykan iyo Yurub way u dhintaan iyo Shiina way u dhintaan say ku heli lahaayeen intay ka helnaa ay taagan yihiin adiga ma ciyaar kula tahay in xalane saldhig lagu yeesho ma ciyaar kula tahay dana la leeyahay abu Djibouti in la soo dego oo ciidamada ugu waaweyn dunida Faransiis Talyaani German Spanish Mareykan Shiina ee meeshas dhex joogaan adiga maxay kula tahay in ciyaar ma kula tahay nimiyo warka idin siiyo maadadan gypsumka tusaale yar idin soo qaadanaa waxa aad u jeclaan lahay jaamacadaha Soomaaliya haday dhageysanayaan professorada ama dadka wax meesha ka dhigo nimiyo inay dhalinyarada baraan maadooyinkan dabiiciga natural resources ka Soomaaliya ku jiro iyo inay dadku u faahfaahiyaan ayaan jeclaan lahay taariikhdan carabta anaga daboodaan iyo taariikhdan Afrikaanka anaga daboodaan iyo heblowa ama uus xirin jiri iyo halgamaaw ahaa iyo wax ee tareeso habeertay ma jirto dadka u sheega dalka ay joogaan waxa ku jiro oo muhiimka loo sheego maadaama gypsumka guryahan ila fiiri Soomaalida Yurub soo gashay iyo kuwa Mareykanka joogo guryahan way yaqaanaan guryahan aad u quruxda badan oo waagi anaga Mareykanka ku cusbeen dhihi jirnay waa waray war guryahan qurux badan kan maadaga oo ku farxi jirnay maadadan gypsumka bahal laga sameeyo oo loo yaqaan sheet rock ay guryahan laga sameeyaa yabkas meel aragtay maada Soomaaliya laga soo qaaday guryahan laga dhisaa Mareykan iyo Yurub aqligaas way fahmeen anaga maxaa u fahmi laanahay jiingadan xun ku jirtiin ka waran jiingadaas ku jirtid hoosteeda maadadan gypsumka ku jiro isla maadadan ay gaaladii inta la soo baxeen ee guryo qurux badan ka dhisteen adigana wali yani easily defines who you are waxay define gareynaysaa qofka adiga aad tahay iyo aqliga kugu jiro ayay define gareynaysaa sidee gaaladan maada adiga dhulkaada ku jiro inta la soo baxeen sheet rock ay u sameeyaan guryahan ugu dhiseen adiga ilaa hadeertaan jiigan xun iyo shamiindo iyo dhagax oo hal sano kadib jeexmaayo ama dilaac u galaayo ku dhex nooshahay horta ma ifaanteen Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka maadadan gypsumka saas ay ka tahay ka mid tahay kama faa'iideysano guryo kama dhisano si loo qodo ma naqaano okay gypsumka xagii u reeh saliid iyo soo celi dhalinyaro barnaamijkan dhageysta oil maal dhaxdaas mar waa idin taabtay maadadan saliidda caalamku wuxuu ku leeyahay tan 1940kii ayaa la ogaay Soomaaliya saliidda ku jirto haddii la faago oo runta laga hadlo oo la soo faago Sacuudiya jiira galiso Sacuudiya waxa la dhihi doonaa xagga galadi Dubai UAE ayadana jiira galay waxaan kaftan ah Iran lagu sheegay warmaad waxa lagu leeyahay kaftan ma aha waa reality waxa lagu leeyahay saliidda Soomaaliya ku jirto haddii la qodo carabta yaabi doonto ayaa lagu leeyahay waana run 100% run waay maxaa yeelay saliidda Soomaaliya exploration waa lagu sameeyay waa la soo ogaaday inay meesha wax ka buuxaan waa la ogyahay lama soo saarin lama farsameynin lama gedin waxba lama sameynin ilaa ay hadirta umadeena adduunka wali waxaa noogu jirto faqri gaajo hebel inta ka dhaca waxaasaa adduunka noogu jirto ilaa hadirta dad waxaan nahay wixii si loo soo saarto aan garanayn intaas waa iga heesaana u maleynaa waana taas caddeynta meeshaas ku qoran tahay maadadan uraniumka igu soo celi uraniumka waxaa laga sameeyaa
hubka rasaasta nuclearka wax alaale wixii bir ah adduunka la isku garaaco la isku dilo holco oo qarxo oo dudumiyo waxa laga sameeyaa maadaasa laga sameeyaa Soomaaliyana saasay ka tahay sidee dalalkan ee uga sameysteen hubkooda iyo rasaastooda maadadaas oo anaga maadadan ee noo buuxdo dalkan ay ugu jirto xitaa uga sameyn la'anahay bir yar oo intaas leeg uga sameyn la'anahay horta waa in caqliga aan ku fikirno iyo sida u fikirno iyo dadka aan dhageysano waa inaan bedelno waay dhalinyarada Soomaalida la hadlaa dadkan aad dhageysataan waxa maala yacniga kaaga sheekeynayo walaalayaal hala bedelo diiradda hala saaro sidii lagu baran lahaa arrimahan dhalinyarada biri haddii dowladeena ay waxba qaban weyso ayna dhageysan fiir hadda Itoobiyaanka iyo Kenyaanka alaabay naga daldashaa waxyaabaha Kenyaanka uu ku caanbaxay xitaa maqaalo laga qoray hadda koorka akhriya xasuusto wax ka mid ah kismaayo wixii dhir ku taalay Kenyaanka yaa jirta dhuxul ka sameystay millions of dollars hadda Kenya Nairobi waxa ku nool dad Kenyaan ah oo milyaneer ka noqday dhir Soomaaliya laga soo jaray taas waa inta nolol sheega waay ka waran inta maada ay la baxeen oo aanan anaga ogeyn oo Kenyaanka diyaarada ay ka sameystaan maantadan oo isla diyaaradahaasna masaakiintii Soomaalida lagu garaacayo waxaan rabaa waxa ka gudbin videogan intiina badan waxa idinku nacay waa caajisaysaan waxaa rabtiin dabo iyo naas inaan idinka sheekeeyo man idinka sheekeynay dhalinyarada intii dhageysanayso wallahi fiiri hadda 400 oo dhalinyaro ah oo isku mabda isku aqli ah hadda israacno dalkaas oo u tashan karna kunta idin sheegaani hogaamiye koox hogaamiyaashan hadda ama madaxda aska dhahno maamul goboleedyada cid ay heshiis kula jiraan iyo Itoobiyaanka inuu natural resources kan dalka ka qaato Kenyaanka inuu natural resources dalka ka qaato way ogyihiin waxa laga yaabaa inay ogyihiin waxa laga yaabaa iyaga in hoos wax looga laabayo kastooda iska qaadanayna laga yaabaa ilan Soomaaliya waa personal interests way waa danaha shakhsiyadeed way cid dalka fikirayso kutaabka ay ku dhaarteen daqiiqadii ay ku dhaarteen daqiiqad ka dambeysay dadkan waa ka sii socdaan marka dalkeena waa qani waxba ka buux waa tiq there's a reason sababa jirto Itoobiyaanka uu nagu soo fakanayo sababa jirto Itoobiyaanka uu markano maxal dhigi jiray xoog uu noo soo saarayo waliba u badan tahay hadeertaan uu isleeyahay Soomaaliya qaski waa ka soo laabanaysaa way ka soo kabanaysaa dowladnimo soo dhadhamayso qaska dib ha loogu celiyo ifoodo dib ha loogu celiyo oo yacni sida kale ay tahay dalkan dhalinyaro ku badan dhalinyaradan aqliga ha laga mashquuliyo waxba yeesan baranin waxba yeesan faa'iidin iyaga hadda aad uga xanaaqaan dhalinyaradeenan qurbaha soo galay wax bartay wax akhristay waxaas oo dhan way ka xanaaqaan marka dagaalkaas socdo dalkeenana intaas oo qeyrada ay ku fadhinaa intaas kaliya hadda ila ogaan lahaydeen waxbay aan